kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka galka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a diyaarado dagaal oo duqeyn ka wada deegaanadii dagaalku ka dhacay ee gobolka hiiraan. Soomaaliya iyo Kenya oo wada hadal cusub ku yeeshay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo sheegay arrin uu ku caawinayo dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya oo qaaday tallaabo muhiim ah oo lagu taageerayo Soomaaliya. qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan warka galka wararka. Fadlan daawade haddii aadan horey noola socon channelka noo subscribe garay haddii aad horey noola socotayna barnaamijka noo like garay noona sii share garay si uu dad badan u gaaro mahadsanid. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray deegaanadu ay ka socdaan duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa sheegaya in weli halkaasi uu ka socdo dagaal culus. Dagaalka ayaa xoogeystay markii ciidamo gurmada oo hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ay gaareen deegaanka Yasooman oo maanta gelinkii hore ay gacan ku haynteeda ay la wareegeen ciidamada dowladda. Wararka la helaya ayaa sheegaya in dagaalka khasaaro xoog leh uu khasaaro xoog leh soo kala gaaray labada dhinac, balse mid waliba uu sheeganayo isagu libinta. Duqeyn diyaaradeed ayaa laga fuliyay meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaabka iyadoo halkaasi la garaacay. Taas ayaana la sheegayaa in aagaga ay kaga sugan yihiin deegaanka Yasamoon, taas oo laga yaabo in khasaare baaxad leh ay u geysato kooxda Al-Shabaab maadaama cirka laga duqeynayo. Dhanka kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Odawa Yusuf Raga ayaa sheegay in dagaalka saaka ka dhacay deegaankaas lagu dilay ilaa iyo 50 ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka saaka salaadii subax bilowday ayaa waxaa la sheegayaa in uu shabaabka ay qaraxyo ismiidaameyn ah ay ku burburiyeen fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa macaawisleyda ee ku sugan aagaasi. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Kenya u fadhiya Soomaaliya. Kulankan ayaa waxaa labada mas'uul ay uga wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga soo jireenka ahaa ee u dhexeeya labada wadan ee dariska ah Soomaaliya iyo Kenya. Danjiraha Kenya ayaa sidoo kale dhankiisa sheegay inuu ka shaqeynayo wanaajinta iyo horumarinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Safiirka cusub ee dalkaasi Kenya ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli uu soo wanaagsanaanayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo aad u xumaa muddadii uu talada dalka hayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kenya ayaa waxaa sidoo kale ka mid tahay dalalka ay ciidamadooda nabad ilaalinta ay ka joogaan dalkeena iyaga oo howlgallo ay ka wadaan qaar ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland halkaasi oo ay kula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliyana waxa ay taageero u helaysaa ololaheeda ku aadan cunaqabataynta hubka in laga qaado kadib markii Itoobiya ay ku biirtay dalka Uganda oo horey u taageeray tallaabadaasi. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in bisha November ay u codeeyaan dib u cusboonaysiinta xayiraadda qaybo ka mid ah hubka, taasi oo Soomaaliya saarnayd 30 sano ee la soo dhaafay. Waxayna Soomaaliya sheegtay in laga qaado cunaqabatayntaasi si ciidamada xoogga dalka ay dalka ugu soo dabaali karaan ammaan iyo nabadgelyo. Taageerada ayaa timid kadib markii bishii July ay Al-Shabaab gudaha u galeen dalka Itoobiya xilli Soomaaliya iyo xulafadeeda ay wadeen duulaan ballaaran oo ka dhan ah Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in ay tahay in la qaado cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya saaran 30 sano ee golaha ammaanka qaramada midoobay ay Soomaaliya saareen si Soomaaliya ay awood ugu yeelato inay la dagaalanto ururka Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa ugu baaqday dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika in ay taageeraan ololaha ku aadan qaadista cunaqabataynta, taas oo ka dhigaysa in ciidamada dowladda Soomaaliya ay awoodaan in dalka oo dhan ammaankiisa ay gacanta ku dhigaan. Kooxda cilmi baarista ee amniga ee Hiral Institute ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa warbixin ay soo saartay bishii Febraayo ku sheegtay in cunaqabataynta hubka ay ciidamada Soomaaliya ka dhigtay kuwo howlgab ah, Al-Shabaabna aysan ka hortagi karin inta aan laga qaadin cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliyana aysan awood u yeelan karin inay la dagaalamaan kooxaha nabadgelyada lidiga ku ah. Madaxweynaha dowladda Uganda Yoweri Museveni oo dhawaan wada hadallo la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku tagay magaalada Kampala ayaa ku dhawaaqay taageero cusub oo uu siinayo dowladda Soomaaliya. Madaxweyne Yoweri Museveni oo
ka warbixiyay wadahadaladii uu la yeeshay dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa ay siin doonto Soomaaliya qalab militari oo dheeraad ah si ciidamada dowladda Soomaaliya ay awood ugu yeeshaan in ay dhinac isaga dhigaan howlgalka ka dhanka ah al-shabaab. Madaxweynaha Uganda ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay wax ka qabashada dhinaca ammaanka ee Soomaaliya iyo caqabadaha haysta dowladda federaalka ay ugu horeyso dhinaca ammaanka. Waxa uu ku baaqay in diiradda la saaro dib u dhiska ciidamada xoogga dalka si ay haatan ula wareegaan amniga guud ee dalka. Uganda ayaa Soomaaliya waxa ay ka caawisaa dhinaca militariga waxaana ciidamo badan ay ka joogaan howlgalka ATMIS oo haatan qaybo badan oo Soomaaliya ka howlgala kaas oo ah nabad ilaalin. balqaadka uu haatan sameeyay Yoweri Museveni ee dowladda Soomaaliya u sameeyay ayaa ku soo aadaya kadib 2 safar oo isxigay oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay magaalada Kampala iyagoo ka wada xaajooday waxyaabo badan oo ku saabsan dhinaca ammaanka. warkii galka wararka kala socoteen daawadayaal wanaga intaas fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay channelka noo subscribe garee barnaamijkana noo like garee si uu dad badan u gaaro mahadsanidin